maanta waa maalin weyn waxaan rabaa inaan hal shay keliya aan hoosta ka xariiro baarlamaanka meeshaan laga dhisay oo Jubbaland ay dhisatay oo shacabkeeda ay u dhisatay maantana madaxweyne loo doortay waxaan ognahay taariikhdii ay soo martay deegaamada Jubbaland markii laga saaray guud ahaan Soomaaliya laakiin qaas ahaan dhiig badan dhibaato badan shugti badan tartan badan waxaan ognahay maanta annaga arrintan aan aad ugu faraxsanahay maanta wixii maanta ka bilowday shakhsi Jubbaland u dhashay oo xoog wax u qaadan kara inaysan jirin shakhsi Jubbaland u dhashay oo qabiil intuu soo abaabulo qoryo soo qaato oo shacabku laan karan inay dhammaato ninkii raba inuu hogaamiyo Jubbaland baarlamaankan Jubbaland ku dhisan oo deegaamada ay dhisteen haddii aad ka hesho ogolaashada sida Axmed Islaam oo helay ahlan wa sahlan dawlad iyo dawlad la'aan inay kala fiican tahay aniga hal shay kaliya baa idin sheegay inta kale waad garan kartaan odayaasha ka sheekeeyay markii aan safaaradda joogay 2003 oo shirkii Imbagaadi aan wadnay waxay qasab noqotay inay madaxda Soomaaliyeed meel iskugu keenay si ay ku heshiiyaan magaalo madaxdeena Muqdisho yaan tagna dhowr jeer inaan wafti ka soo qaadno waxaan idin sheegay 6 jeer oo tagay Muqdisho 6 airport ku kala tagay 6 airport Daniela Isiley Baladogle Muqdisho number konton meeqaway maanta maxaa lagu dagaa ama 6 lagu kala dagaa hadda maanta ma 6 diyaaradaha meesha kala dagaysa ma jirto maanta waxaa lagu dagaa Muqdisho International Airport oo loo bixiyay aadan cadde International Airport intaas kaliya waxaad ka garan kartaa macnaha dawladnimada wax kale hoos ka qaadan Soomaaliya hadiisan la helin Prime Minister cid shacabka intay hasuuqda haddana lala xisaabtamaynin maalintaas inta laga gaaraya hasuuqa saar u soconaya waa laasim beesha caalamka inay Soomaaliya ku tiragasho dad baa jira heeg waxay jiraan maxkamadaha heeg Afrika ay ka mid yihiin maalin walbana dad baa meesha lagu maxkameeyo maxay ku dhacday Soomaaliya inay hal maalin qof ummadda intuu hasuuqo haddana shacabka iska dhex soconaya si caadi ah dawladda federaalka inay arrintaas hogaamiso ay codsato there is no way we can allow impunity to continue Mr. Prime Minister this is impunity day in day out maanta waa gaalkacyo berri waa Kismaayo maalin kale waa Beledweyne shacabka meeqaasano la laaynaya yaana mas'uuliyadda qofka la laaya qaadan doona inay qofka la ciqaabo ma socon karta arrintaas waana ka wada hadalnay annagana runtii hadda urgoboleedka igaad anigu waxaan rabaa anoo ergeyga inaan runtii arrintaas ku dhiirigeliyo maalintii qof Soomaali maxkamad caalami la keena xasuuqan uu joogsan aan hubna laakiin maalintii caadi iska noqoto in shacab la barakiciyo magaalo booming bay ahayd magaalo dhismaysay ahayd dad baa maanta ku nool xaafadooda ka qaxay duur ku nool waxay ku sugan yihiin in garriin kuwa dhintay baaba la gartay Allah u naxariisto Actually, we just finished our council meeting, foreign ministers of the IGAD sub-region had a very serious discussion on the situation of Somalia because this year Somalia is doing an election. In August there will be an election and they will have a new president and presidential elections in September. And therefore we have to review progress in the country. And politically the foreign ministers have welcomed the decision of the Somali government on a model that they think is best for the country now. Somalia has massive displacement crisis. We are talking about a third of the population having been displaced, and it is the world's most protracted refugee situation. It's come to the realization of all of us that because of emerging new crises around the world, in Yemen, in South Sudan, in Syria, that there has been every possibility that this particular population has been forgotten.
So part of my effort as a special envoy of the High Commissioner is to do advocacy work globally, to support the Somali government to create better conditions, to help the host countries themselves access support. Many countries in the region continue to redefine their laws and regulations with a view to allowing the Somalis who have been in the country for a long period of time to feel locally integrated.